السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وين وايدين السلام ميلو بات شوكتان وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كيما جري معد كنبدا يا بلشده ولا يا برنامج عا waxay nu ku eegaynaa runtii khatar ii muuqata oo ku soo fool leh dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya. Bariyahan waxa soo badanaya dad fara badan oo dadka kicinaya oo dadka Soomaaliyeed ee wadanka Kenya ku nool oo muwaadiniin Kenyan ah laakiin asalkoodii Soomaali yahay la doonaya dhibaato. Arrinta waxa ka qayb qaadanaya dad fara badan oo xataa qaarkood ay yihiin dad ma garanaysa meelo mas'uuliyada oo mas'uuliyad sare haya ama kaniisadaha ka haya ama dawladda ka haya ama jaamacadaha ka haya ama meelo kale ka haya ayaa kamid ah. waxa kaloo kamid ah dad caadi oo fara badan oo baraha bulshada ku soo buufinaya yacni suntaas ku aadan dhibaataynta dadka Soomaaliyeed. marka hadday arrimuhu saa u socdaan oo khatartaasi ay socoto waxa iman doona inay dadku qaataan oo u qaataan baan inay waxaan laga hadlayaaba dhab yihiin oo dadkan Soomaaliyeed oo wadanka degan oo muwaadiniinta ay yihiin qaar faquuqan oo dhibaato wada oo ma garanaysa xadgudub wada oo dadkii kale noloshoodii ma garanaysa dhibaato u geysanaya ama dadkii kale oo Kenyaanka ah inay noolaadaan ma garanaysa lid ku ah waxyaabo ama faa'iido ay heli lahaayeen ka hortaagan ka qaatay oo ma garanaysa siyaabo aan cadaalad iyo sharci ahayn uga qaatay waxyaabo fara badan shaki badan baa imaanaya. marka khatartu waxa weeye runtii in dad badan oo mas'uuliyadaha haya sidaan idin sheegay ama kaniisadaha ka tirsan ama mas'uuliyiin hore ahaa ama haddaba ah ay arrinta buufinayaan oo inta ay ma garanaysa dadkooda la hadlayaan. marka dadka caynkaasi ay ku lug yeeshaanna khatartu waa sii ballaarataa waxaana runtii ay keentaa in halis cad ay meesha timaado oo laga yaabo in dhibaato dhacdo. dadyowga nimanka Kenya markaan anigu fiiriyay waxyaabaha ay ku hadlayaan markaad fiiriso waxa weeye waxyaabaha keena in dadku ay galaan dambiyada xadgudubka waaweyn oo ma garanaysa ay ka mid yihiin sida genocide-ka waxa loo yaqaano oo dad gooni ah la beegsado oo loo beegsanayo ma garanaysa ama midabkooda ama diinta ay haystaan ama dhaqankooda ama maxaan ku yiraahdaa meesha ay ka soo jeedaan iyo nationality-gooda sababtu waxay rabtaa noqoto. marka arrintaas waxay noqon kartaa mid lala doono dadka in la dhibaateeyo ama dhibaatadaas ha noqoto mid ah in la burburiyo oo ma garanaysa gacanta loola tago oo la dhibaateeyo oo la laayo oo la qixiyo oo dhibaato caynkaas loo geysto ama ha noqoto mid xagga maskaxda ah oo psychological ah ha noqoto. labaduba waa suuragal. waxa ilaa hadda ay taagan tahay waxa weeye runtii ma dhicin dagaal ma dhicin iyo weerar ma dhicin laakiin hadday saa ku sii socdaan arrintaasi runtii waa wax imaan kara weeye. waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed oo wadanka degan inay isleeyihiin Kenya waa dawlad xoog leh iyo caynka iyo walaalayaal taasi iyo idin sirin sababtu waxa weeye markii dadku ay ooda jabsadaan waa adagta in ciduna wax ka qabato. kuwa aad isku halaynaysaan oo ma garanaysa ama xagga sharciga ilaalinaya ama askaraha baa laga yaabaa qaar inay dhinac ka raacaan. haddaan dhinac ka raacin inay u ogolaadaan inay maaragtay ay galaan gafaf ay galaan ama dhibaatooyin geystaan waxa idin ku filan tusaale baarlamaankii Kenya sidii loo galay maalmihii dhaweydoo dadku ay maaragtay ooda jabsadeen ama ay galeen ma garanaysa mudaharaadka iyo maaragtay cidda ay magaalada ku yaaceen oo ku qamaameen oo dhibaatooyin geysteen yacni wixii dhacay baa idin ku filan waad iskartii waxay qaban kartaa ma jiraan. waxaa marka lagama maarmaana dadka Soomaaliyeed inay arrintan ku baraarugaan oo aysan runtii u qaadan arrin fudud inay tahay in ummad dhan la beegsado oo sidaa ummad loo beegsado wadanka degan runtii waxa weeye wax la dhayalsan kara maaha. ummadda Soomaaliyeed oo wadanka joogta ma aha inay intay iyadu heshiisay ay tiri cid baynu dhibaataynayna wadanka ku nool ama ma garanaysa beelo gooniya ama communities gooniya baynu dhib u geysanayna ma aha. laakiin aniga sida ii muuqato waxa laga xun yahay horumarka ay sameynayaan iyo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo xilalka dawladda ay ka hayaan arrimaha caynkaas oo aan ahayn wax hore laga yaabo inaan u jiri jirin
ayaa maaragtay arrinta lagu haysto taasina dembi maaha hadduu qofku dadaalayo isagu wax kasbanayo waddanka waa loo siman yahay horumarkiisa iyo shaqadiisa iyo ganacsigiisa iyo wax walba waa loo siman yahay laakiin ma aha in dadka Soomaaliyeed si gooniya loo beegsado bulsho kasta oo waddanka ka tirsan way sameynayaan horumarkuba iyagu way sameynayaan ganacsiga ku jiraan dawladda ku jiraan waxbarashada ku jiraan cid walba kamida ama dadka Kenya asalka ahaayo magaranaysa dadyo kala duwan ha ahaadeen ama dadka kale oo magaranaysa Asiaanka iyo Carabta ha ahaadeen cid walba ayaa qayb ka ah Soomaalidu marka cidna kama sadroona laakiin waxa weeye sabab un baa jirta maaragtay lagu doonayo oo maaragtay lagu daandaansanayo waxaa marka laga maarmaana in dadka Soomaaliyeed oo ama maalqabeenka ama madaxda ama waxgaradka Soomaaliyeed arrintan inaanay fududaysan oo runtii muhiimadda ay leedahay ay xoog saaraan muhiimadda ay leedahay inay xoog saaraan waa inay istaraatiijiyad ay sameeyaan ay arrinta ku bedelaan oo wax uga qabtaan hadday sidaa ku socoto waxaad gaari doontaan meel aydan waxba qaban karaynin dhibaatooyinka ugu horeeyo arrintan ay idinku keeni kartaa waxa weeye inaad takoornaataan oo adu loo idin arko dad maaragtay dhibaato ah waxa kaloo sababta dadku saasi aaminayaan dad Kenya markii waxa lagu celceliyo oo lagula hadlo sidaas ay aaminayaan waxa kaloo oo ayana ay keeni kartaa in caruurtiin iyo dadkiina ay geliso magaranaysaa baqdin ama xataa dad isla hooseeyo ay maaragtay inta baqdin iyo magaciisiyo ku jira oo iyagu laftoodu gacan ku gabada oo aan dhiiran karin oo aan hadli karin yaani uqdad in lagu beero iyo inferiority complex in lagu beero ayaa dhici kara waa inaad marka cadaataan idinkoo sharciga raacaya oo nidaamka raacaya waa inaad cadaataan oo muuqataan sida aad hanti u haysataan oo tayo u leedihiin oo magaranaysaa tiro u leedihiin waa inaad isticmaashaan khayraadka aad haysataan iyo resourceskiina oo aad muujisaan inaad tihiin muwaadiniin xalaala oo aan lagu xadgudbi karin dadka Kenya hadday og yihiin qof shakhsi waa la qabsan karaa hadduu wax dembi galay ama wax xaday ama wax musuqay ama dhibaatooyin geystay laakiin bulsho dhan in la mariyo brushkaas la mariyo oo la yiraahdo waad xuntihiin tuug baa tihiin taas wax la aqbali kara maaha waxaan idin kula talinayaa haddaba dadka Soomaaliyeed waddan Kenya degan waxaan idin kula talinayaa inaad istaraatiijiyad samaysaan arrintan aad kaga hortagtaan arrintan wax laga aamusi kara ma aha horta waa inaad u tagtaan kaniisadaha dadka ugu sareeyo xukuma kaniisadaha lidinka dhibaataynayo waa inaad madaxdooda la fariisataan oo tirahdaan warniyo dhibaatadana lagu hayaa kaniisadiisna waa inay naga joojiso kulli waxaynu nahay dad ma garanaysaa faith people ama dad ahludiin aynu nahay diimuhuna ma qabaan in la is dhibaateeyo hana laga joojiyo anagu bulshadeedu waa bulsho dadaal soo shaqaysanaysa haddii qof lagu og yahay dambi ku jira sharciga hal horgeeyo laakiin in si guud anaga noloo maaragtay dhaleeceeyo ama dhibaato noloo geysto taas waa gardaro waxa kaloo mihiida inaad dawladda u tagtaan nimanka booliiska iyo magaranaysa inaad u tagtaan baarlamaanka inaad u tagtaan siyaabaha inaad uga hadashaan arrimahan wargeysyada inaad ku qortaan TV-yaasha inaad ka hadashaan inaad is abaabushaan oo waxaan aad si xoog la uga hortagtaan dadka Soomaaliyeed waxa kaloo muhiima in magaranaysa aad muujisaan inaad tihiin dad waxtar ah oo waddanka wax u taraya waayo waxa la idin arkaa hanti badan baad haysataan hantida sadaqooyin ka bixiya oo sadaqooyinka maaragtay siiya maxaan ku yiraahdaa isbitaalada geeya oo dawladaha hoose geeya oo meelaha dadka masaakiinta lagu quudiyo geeya oo maxaan ku yiraahdaa meesha idinku aad joogtaan oo ganacsigiina iyo hawlihiina aad ku haysataan kaga shaqeeya nadaafadda iyo bilicdeeda iyo qurxinteeda kaga shaqeeya dawladda la gala heshiisyo oo lacagta bixiya si police stations la idinku dhiso oo meesha maaragtay nabadgelyadeeda loo sugo waxyaabo badan baad samayn kartaan walaalayaal laakiin haddii aad iska hurudaan oo qof walba uu yiraahdo aniga shaqaday maaha dantay maaha kulligiin waa leedin helayaa bulshooyin kale idin la degan waddanka sida isugu duuban yihiin iyo siday meel isaga mariyeen dadka qaswadayaalkana waxa weeye waad ogtihiin waxaan idinka sheekaynayaa ma aha idinka marka waajib idinku tahay khayraadka ilaahay idin siiyey oo xoolaha ah oo tirada ah oo dadka ah oo aqoonta ah inaad ka faa'iidaystaan inaydan ogolaanin dad xun oo qaswadayaala oo magaranaysa inay caynka buufiyaan waxaas oo dadkii oo dhan laydin soo jeediyo laydinku tuso maaragtay inaad tihiin dad mashaakil wada oo wax wada waa siyaabaha ay genocide-ka iyo in dhibaatooyinka la geysta ay ku bilowdaan
in dadka marka hore baqdin lagu bilaabo oo dadkaas waa caynka dhibaata inagu hayaan xoolaheena ay qaadanayaan dabadeedna hadhowto laga dhaadhiciyo dadkii ay maaragtay hadhowna la yidhahdo maxaan idiin sheegnay action qaada haddii kale waxay naga hari maayaan waxyaabahaas wey waxyaabaha ay ku dhacaan arrintaa ha sahlinina dadka Soomaaliyeed ha fududaysanina arrintaa meelo badan baa adduunka genocide iyo dhibaato ka dhacday meel walbana waa la ogyahay marxaladuhu say ku bilowdeen iyo markii dambe say ku dambeeyeen waajib bay idinku tahay marka inaad dad noqotaan oo istifaacdaan madax baad leedihiin maalqabeen baad leedihiin aqoon-yahan baad leedihiin cid walbaad leedihiin yaanay dhicin maalin dambe in qof intuu meel tago ama kaniisad ama magaranaysaa baraha bulshada uu ka buufiyo magaranaysaa sun loogu talagalay in lagu sameeyo dadka oo lagu soo jeediyo dadka ummadda Soomaaliyeed halkaa degan ummadda Soomaaliyeed waa inay tiraahdaa war qof dambi haddii lagu ogyahay sharciga geeya laakiin annaga bulsho ahaan yaan dhibaatada naloo geysanin waxaan rajaynayaa inaynu dhowaan aragno dadaal ay sameeyaan bulshada Soomaaliyeed halkaa joogta oo runtii ay tilaabooyin qaadaan ay arrimaha uga hortagaan saasaan rajaynayaa cabdi maxamuud qalla barnaamijkii idinka iman jiray macadka nabadda iyo bulshada walaalayaal caawa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan idinka codsanaynaa barnaamijka inaad like saartaan inaad subscription ku samaysaan inaad magaranaysaa si aad u gaarsiisaan dad fara badan sababto waxaan qabaa fartiintaan inay muhiim tahay oo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay runtii ku baraarugaan oo dad badan ay gaarto marka khayr baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh